السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برامجka falanqaynta sportska waxaanu ku eegi doonaa kulamadii la ciyaaray xalay ee aad ku xiisaha badnaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa u safartay kooxda Leeds United Chelsea ayaa ku adkaatay 3 gool iyo waxba kulankan oo ka dhacay garoonka kooxda kubadda cagta ee Leeds United kooxda kubadda cagta ee Chelsea wax badan kuma aysan qaadan inay dhaliso goolka ugu horeeya ee ciyaarta waxaan u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Mason Mount iyo isaguna ka caawiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Reece James 4 daqiiqo markii mareysay ciyaarta ayay Chelsea waxay ku hogaaminaysay hal gool iyo eber 24 daqiiqo markii mareysay ciyaarta waxaa roose ka qaatay kooxda Leeds United ayadoo xaalka ku xun yahay waxa ku sii xumeeyay ciyaaryahanka la yiraahdo Daniel James waxa maqli jiray adoo xun mu ku qaniinay kooxda Leeds United kulankii hore Arsenal 10 daqiiqo gudaheed ayadoo 2 eber lagu leeyahay bay roose qaateen 27 daqiiqo markii ciyaarta mareysay ayadoo hal gool lagu leeyahay 24 daqiiqo mareyso roose ayay dafeen kulankaana laba kulan isku xigto ayay roose qaateen kooxda Leeds United Loftus-Cheek ayaa soo galay garoonka wuxuuna bedelay ciyaaryahankii dhaawacmay ee lagu magacaabo Kovacic sidoo kale waxa bedel ku soo galay oo kooxda Leeds United u soo galay ciyaaryahanka la yiraahdo Junior Firpo isagoo bedelay ciyaaryahanka loo dhaawac ku baxay 37 daqiiqo ciyaarta markii mareysay Jack Harrison qaybta hore ciyaarta intaas dhamaanin 43 daqiiqo markii mareysay Calvin Phillips ayaa yellow card dafay oo kooxda u ciyaara Leeds United ciyaarta markii la soo noqday 10 daqiiqo kadib 55 daqiiqo markii mareysay Chelsea ayaa goolka labaad heshay waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Pulisic Chelsea ayaa u muuqatay koox badanaysa markay kooxda kubadda cagta Leeds United oo sax qaadatay gool ayadoo lagu leeyahay meesha ay ka sii waday kooxda kubadda cagta Chelsea iyadoo bedel ku soo gelisay ciyaaryahanka loo yaqaan Azpilicueta iyo ciyaaryahanka loo yaqaan Hakim Ziyech Chelsea ayaa labadaas hal mar bedel ku keentay markay ciyaarta mareysay 87 daqiiqo kooxda kubadda cagta ee Leeds United xalka ku sii xumaaday ciyaaryahankooda kaga ciyaara garabka midig ee loo yaqaan Rafinha ayaa ka dhaawacmay iyadoo lagu soo geliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Gelhardt sidoo kale Chelsea ayaa goolka saddexaad dhalisay ciyaarta muuqtay hal dhinac inay u socoto waxaan goolka saddexaad Chelsea u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Romeo Lukaku waxaana caawiyay ninka la yiraahdo Hakim Ziyech xiddig garoonka wuxuu muuqday inuu yahay Mason Mount maadaama gool dhaliyay goolna uu caawiyay Chelsea ayaa kulan raaxa leh kaga badisay kooxda Leeds United oo xaalku aad ugu liito Chelsea ayaa horyaalka Premier League kaga jirta kaalinta saddexaad ayadoo leh 70 dhibcood waxayna caawa si raaxa leh oo nafis leh u daawan doonaan kulanka dhexmari doona kooxaha Arsenal iyo Tottenham oo ku soo xiga oo min Arsenal ku soo xigta oo 4 dhibcood ay ka sareyso walow ay Chelsea kulan hore ciyaartay Arsenal kulan u dhiman yahay kulanka caawa Arsenal ciyaaraysa kooxda Tottenham waxaa la arki doonaa labada kooxood guuleysta balse Chelsea wax walwala kuma hayso maadaama horyaalka laba kulan kaliya ugu harsan yahay Arsenal 4 dhibcood ay ka sareyso Chelsea waxay u badan tahay inay Champions League soo bixi doonto balse kaalinta saddexaad ay Chelsea leedahay oo ku soo baxaya sanadkan maadaama aan u tartamin horyaalka Premier League kulamada kale oo la ciyaaray horyaalka waxaa kamid ahaa kulan dhexmaray kooxda Leicester City iyo kooxda kubadda cagta ee Norwich kulanka ayaa qaybta hore ku soo ilaaday eber wax yellow card ma jirin wax red card ma jirin wax gool la iska dhalimaan laakiin markii dambe la isku soo noqday ninkii Jamie Vardy ayaa ku faageystay oo dhaliyay 2 gool goolka saddexaad wuxuu dhaliyay James Maddison ciyaaryahanka lagu magacaabo ciyaaryahanka xulka qaranka Ingiriiska ee James Maddison ayaa goolka saddexaad u dhaliyay saasna Leicester City ayaa kooxda Norwich oo mar hore xaqiijisay inay horyaalka hartay kaalinta 20aadna gashay kaga badisay garoonkeeda ayuu ku ciyaaraysa kooxda Leicester City garoonkii Power ay ku ciyaaraysa Leicester Norwichna 3-0 baa la diray kulanka eber ku soo dhamaaday kooxda kubadda cagta ee Watford iyo waxa ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Everton kulankaas wax gool la iska maralin kulankaasna waxa dhibic muhiim u ahayd kooxda kubadda cagta ee Everton oo garoonka Watford ku ciyaaraysay Everton ayaa kaalinta 16aad ku jirta ayadoo 35 kulan ciyaartay Leeds oo 36 kulan ciyaartay ayaa ku jirta kaalinta 18aad waxaa moodaa Everton inay 2 dhibcood ka sareyso kooxda Leeds walow Everton kulan baaqi u siiyay Everton kulku dambe kooxda Arsenal bay ciyaar doontaa laakiin taageerayaasha Arsenal waxay rajeynayaan Everton oo soo raaxaysatay inay la ciyaaraan oo Serie B aan ka cararayn maadaama koox markii Serie B ka cararayso oo Everton oo kala ah ee garoonka Arsenal timaado ee Arsenal wacdar ku sheegi karto Arsenal kulankaas way u baahataa u badan tahay haddii kulanka Tottenham laga badiyo
sidoo kale Man City kooxda kubadda cagta ee Man City ayaa 5-0 waxay ku garaacday kooxda kubadda cagta Wolves ayaa gurigeeda loogu tagay 5-0 Kevin De Bruyne ayaa ku baashaalay kooxda kubadda cagta ee Wolves isagoo ka dhaliyay 4 gool Kevin De Bruyne waa ciyaaryahanka dhaliyay 57 gool horyaalka Ingiriiska isagoo wax madax aan dhalin ma jiro ciyaaryahan horyaalka Ingiriiska ciyaaro 57 gool dhaliyay oo isku jirin gool madaxa Kevin De Bruyne ayaa qaybta ugu horeysay ciyaarta 3 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Man City kuwa markii la soo noqdayna goolka afraad isaga dhaliyay laakiin goolka ugu dambeeyay kooxda Man City waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Sterling oo 84 daqiiqo markii goolka mareysay dhaliyay balse City markii goolku hormar 7 daqiiqo 12 daqiiqo kadib 4 daqiiqo kadib waxa ka jawaabay kooxda kubadda cagta ee Wolves ayadoo hal ciyaarta ka dhigtay kadibna Man City ay meesha iskala wareegtay 16 daqiiqo gool 34 daqiiqo gool 3-1 lagu maray kamida hore De Bruyne 3 gool dhaliyay waa la isku soo noqday 60 daqiiqo De Bruyne goolkiisa afraad ciyaartu way socotay 84 daqiiqo Sterling baa goolka kala dhaliyay De Bruyne ayaa noqonaya dabaaldega uu sameeyay waxay la mid ahayd baa la yiri dabaaldegii Haaland laakiin markii ciyaarta kadib la wareystay wuxuu yiri aniga markaas goolka 3 dhaliyay baan fareyga 3 baan tilmaamay meeneed waxaan ka waday hat-trick baan dhaliyay mahane ninkaas ulamaan jeedin oo la yiraahdo Haaland dabaaldegiisa kamaan wadin buu yiri ninka la yiraahdo Kevin De Bruyne markaan fiirino kala horeynta horyaalka Premier League kooxda kubadda cagta Man City ma aysan dhalin kaliya ma aysan helin dhibce goolal badan way dhalisay waxa la yiri Liverpool iska fiiri wixii fool bilaayo iska fiiri baa la yiri kooxda Liverpool 72 gool baa la leeyahay iska daa 3 dhibcood baa Liverpool laga sareeyaa 89 dhibcood waxa leh kooxda Man City 86 dhibcood waxa leh kooxda Liverpool min 36 kulan bay ciyaareen 2 kulan baa horyaalka hartay waxa la yiri saaxiib iska fiiri kulan uu dambeeyay haduu horyaalka haray xataa hadii laga badiyo ugu dhibco noqotid waa ka gool badanaha la yiri kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaan ka badanahay 7 gool 65 gool ala 32 gool baan leeyahay 7 gool ma dhalay doonta labada kulan ay soo socotay kooxda Liverpool anigana ma ku fadhinayaa la yiri aniga gool baan dhalinayaa Liverpool kulankii hore waxay ka badisay kooxda Wolves waxa ka badisay kooxda Aston Villa hali eber labi hal bay ka badisay kooxda Man City 5-1 way ku durdurisay 4 gool oo nadiif ah meesha ka soo qaadatay waxa la yiri hadda kulanka soo socda aan badiyo kulanka ugu horeeyay horyaalka hadii laga u dambeeyay laga badiyo xataa aad badisay labada kulanna oo isku dhibcaan noqono hadal goolashaas ma soo gaari kartid laakiin Liverpool ma dhayalsan karo Man City islaali